marka siiruga lagu sheegaya ama imtixaanku wuxuu ka imaanayaa buuggaas drivers handbook u taqaano transport for London buuggaasuu ka imaanaya waxaa lagaa rabaa buuggaas inaad fahamto imtixaankuna wax kale ma aha waxaa lagu eegayaa inaad buuggaa fahamto marka buugga markaad gasho saan hore usoo sheegnay dadkii la socday casharadii hore wuxuu ka kooban yahay 10 chapter ama sections 10 section sectionka koowaad iyo sectionka labaad waxay ka hadlayaan darawalka iyo gaariga ay ka hadlayaan sectionka saddexaad wuxuu ka hadlayaa markii aad laysanka soo qaadato ood gaarigana aad soo kaxaysato shaqadii aad qaban lahayd buu ka hadlayaa ka afraad iyo ka shanaadna waxay ka hadlayaan darawalkay ka hadlayaan safetyga iyo attitudeka darawalka behaviorka ay ka hadlayaan 7 iyo 6na waxay ka hadlayaan darawalka waditaanka siduu gaariga wada safetygiisa iyo waddada uu marayo waxay waa darawalka iyo waddada uu marayo ka hadlayaan ee waxa lagu qoseeya waxaa kusoo haray 9 iyo number 8 iyo number 9 baa kusoo haray waxay ka hadlayaan dadka aad qaadayso sidaad ula dhaqmi lahayd iyo dadka jilicsan ay ka hadlayaan number 10 wuxuu ka hadlayaa ride sharing ka hadlaya waa chapterka ugu yar aan half page baan marinay marka la isku wada daro kulligiis waa content page content page haddaad maad aragtay muxuu ahaye si fiican u fahamto imtixaanka orod baad ku baasaysa boqol saasa loola socdo wiigi hore waxaan qaadanay private hire driver waa darawalka iyo laysankiisa waxa la wixii ku saabsanayo dhan ayaan qaadanay hadday tahay shuruudaha waxyaalaha laga doonayo inuu ogaado oo dhan oo ku saabsan laysanka darawalka ama DCO license waxaad taqaanaan maanta waxaan ka hadli doonaa vehicle-ka waa everything about muxuu ahaye wax kasta oo ku saabsan gaariga in ka hadlayna intaynaan bilaabin waxaan idin xasuusinaynaa oo aad iyo aad muhiim u ah wiigi horena waan soo qaadanay waa inaad u diyaar garowdaa imtixaanka mentally waa inaad ogaataa imtixaan inuu ku sugayo imtixaan inuu ku sugayo waa inaad ogaataa waad u diyaar garowdaa waa very important dadka qaar waxay u haystaan 2025 weeyaan deadline-kaygu marka waxaan haystaa enough time ayaan haystaa marka taas sax ma aha 2025 kumiis waxa weeye waa maalinta la rabo qof kasta oo darawal ah inuu ku soo baas gareeyey imtixaankaas laakiin anytime baa lagu soo diri karaa imtixaanka marka waxay ugu talagaleen markay kuu soo dirayaan waxay kaa filayaan inaad mar hore aad diyaar ahayd marka diyaar maan ahayn lagama yeelayo waa inaad marka hore aad diyaar garowdaa mentally waa inaad diyaar garowdaa imtixaanka inaad gelayso waa inaad waqti u samaysaa si maad aragtay imtixaanka aad ugu baas assessmentkiisa aad ugu baasi lahayd waa inaad waqti u samaysaa haddaanad waqti u sameynin oo aanad maad aragtay buuggaas baranin si fiican u fahmin dee ma gaaraysid muxuu ahaye gradekaa doonaysa kadibna waa inaad action samaysaa markaad maskaxda ka diyaar garowdo mentally oo aad waqti samayso action baa lagaa doonaya actionkaas wuxuu noqonayaa waa inaad buug akhridaa ama akhri ama dhegeyso isagoo awliya haddaad dhegeysato ood fahamto haddaad akhrido waa same laakiin waa inaad akhridaa markaad gaariga wadana kulliga gawaari baan wadnaa
gaariga markaad wadana dhegta gasho iska maxay ahayd inta dhegta gashato dhegeyso waana idin soo diyaarin doona isagoo cod ah haddii ilaha yidhaahdo su'aalahana waa inaad practice ku samaysaa mock testka na waa inaad isagana aad iska qaadaa insha allah website baan idin soo samayn doonaa waxyaalahan oo dhan ay ku dhan yihiin marka waxaan filaynaa in 2 week meelahaas ay qaadanayso intuu kusoo dhammaanayo marka markuu soo dhammaado insha allah email baa laidin soo diri doona waa la socon doontaan waxaa lagaa doonayaa inaad action samayso means action wuxuu noqonayaa buugga inaad akhridaad fahamtaa questionskana aad practice ku samaysaa mock testna aad iska qaadaa mock test waxa weeyaan waa imtixaankii oo kale marka waxaan gelaynaa hadda muxuu ahaaye casharkii baan gelaynaa waxaan ka hadlaynaa maanta section 2 ama sectionka labaad waxa weeye waa licensing requirements for PHVs means waxa weeye gaarigaan wadano iyo wuxuu ka hadlayaa wax kasta oo gaariga looga baahan yahay everything about muxuu ahaaye gaariga aad adiga wado ayuu ka hadlayaa sectionkan wuxuu ka kooban yahay 4 section 4 topic buu ka kooban yahay topic ugu horeysa waxa waa licenka muxuu ahaaye warqadda ah iyo license diskii ka hadlayaa section waxay topica labaad wuxuu ka hadlayaa muxuu ahaaye insurance-ga ka saddexaadna wuxuu ka hadlayaa gaariga dhaawaca soo gaara collisionka ka ugu dambeeyana waxa weeyaan oo number 4 wuxuu ka hadlayaa muxuu ahaaye information ku saabsan adiga gaariga oo dheeraad ah waxaan ku bilaabaynaa license ku bilaabaynaa gaariga waad garanaysaa licenka qof loo sheegayaa ma jirto licenka wuxuu ka kooban yahay mid gaariga lagu dhejinayo iyo mid gacanta lagaa siinayo qof kastoo inaga mid ah oo looga sheekeynaya ma jirto waa vehicle licensing waa kan kana waxa weeyaan waa license disk waa kii gaariga lagu dhejinayo okay marka gaariga marka lasoo saaro oo gaariga licenka lagu soo siiyo qofka gaariga iskale waxaa la siinayaa license waa kaas weeyaan warqadda iyo warqad leaflet ah oo ay ku qoran yihiin conditionska lagaa rabo in wixii lagaaga baahan yahay license shuruudaha licenka gaarigan waxaa lagu dhejiyaa waa saad ogtihiin license disk ayaa muraayadda hore iyo muraayadda dambe lagu dhejiyaa qof inaga inaga mid ah oo aan garanayn intaas ma jirto license wuxuu valid yahay 1 year waad garanaysaa markuu kaa dhaco waxaa lagaa rabaa inaad mar labaad aad ku noqoto meeshii inspectionka si madarta license lagu soo saaro license diskiga gaariga ku dhegan lama rabo habeeraatee in wax damage ah soo gaaro lamana bedeli karo marka bedelidaas maxaa laga wadaa bedelidaas waxa weeyaan tani kaba soo qaad haddii muraayadda hore gaariga kaa jabto kala marka dambe kaa jabto waxa weeyaan oo la bedelo mise waxa weeyaan waa inaad TFL ku noqotaa si ay mid cusub kugu soo dejiyaan lagamana fujin karo xataa haddii aad gaariga u isticmaalayso as private aad u isticmaalayso tani kaba soo qaad 6 bilood baad waxaad tiri ma shaqaynayo 6 bilood baa kaa fujinayna laguma ogola waxay ku leeyihiin waxaa ku jirta security feature ayaa ku dhegan bay ku leeyihiin ayaa license disk ku leeyihiin marka haddii laga fujiyo waa permanent damage mar dambe laguma celin karaayo waxaan idin akhrina waxa buug ku yaala wax oo maaragtay waxa imtixaanka meesha lagaaga qaaday weeyaan wax aad garanaysan way kulligood laakiin wixii buugga ku yaalay unban idin sheegayna haddii uu license diska gaari ku dhegan
uu dhaawacmo ama wax gaaraan ama damage soo gaadho amaba uu kaa lumo ama lagaa xado waxa weeye waa inaad TFL u sheegtaa si mid cusub lagugu soo maxay ahayd lagugu soo bedelo waxaad ogaataa bay ku leeyihiin haddii muxuu ahaaye diskiga gaariga ku dhegan license diskiga gaariga ku dhegan haddii aanu ku dheganayn gaariga amaba uu badly damaged uu yahay amaba appearancega sida uu u eg yahay ay isbedesho waxa weeyaan gaari kuma shaqayn karaysa waa siday kuu sheegayaan ay kugu sheegayaan muxuu ahaaye handboga marka haddii gaariga batanin kaba soo qada haddii diskigaas license diskigaas haddii uu damage badly damaged bay yidhahdeen amaba appearancegiisu ay isbedesho sida u eg yahay wax iska bedela wax ama wax ku dhacaan waxa weeyaan amaba ay ka maqan yahayba gaarigaas as private hire oo isticmaali karto waa inaad ku noqotaa TFL si ay mid cusub ugu soo dejiyaan waxaa jirta mararka qaarkood in exemption la siiyo gawaarida oo laga dhaafo in lagu dejiyo license diskiga markaas waad codsanaysaa waxaana lagu soo dirayaa waxay u yaqaanaan muxuu ahaaye exemption notes waxaa lagaa doonayaa mar walba inaad qaadato bahashaas exemption noteska la yidhahdo halkaas waxaan ku dhammaynay topicii ugu horreeyey ee ahaa laysanka gaariga hadda waxaan gelaynaa insurance-ka insurance gaariga maxay ahayd lagaga baahan yahay waxa weeyaan waa nooca loo yaqaano hire or reward noocaasa lagaga baahan yahay waa markaad gaariga ku shaqaynayso waxaa kaloo ogaataa even xataa haddii aad ku shaqaynayso isdelivery waa inaad haysataa insurance-ga private-ka kuma shaqayn karaysid haddii laguu qabto points baa lagu siinaya license-kan kanna waxaa laga yaabaa haddii maaragtay gaarigaaga caadiga aad ku shaqayso private insurance in isagana maaragtay license-ga PHV-ga talaga ama lagaa qaado amaba points lagu siiyo marka waa inaad haysataa hire or reward insurance waad garanaysaan kulligiina waad haysataa marka insurance-gaas waa inuu valid yahay gaariga marka license-ka la soo saarayo waa inuu valid yahay iyo mar walba oo aad ku shaqaynayso as private hire waa inuu valid yahay micnaheedu waxa weeye haddii aad go'aansato 6 bilood inaanad shaqaynin waad qaadan kartaa muxuu ahaye private muxuu ahaye insurance waad qaadan kartaa laakiin kuma shaqayn karaysa markaa ku shaqaynayso waa inaad haysataa hire or reward insurance waxaa lagaa rabaa insurance detailka inaad mar walba haysato si haddii uu booliisku ku weydiiyo aad u siiso ama inta aad gasho muxuu ahaye ama aad gasho accidents oo passengerka amaba qof kale oo ka mid ah publica ay ku weydiisto waa inaad insurance maxayd insurance-ga waa inaad siisaa marka TFL waxay kugu dhiiri gelinaysaa inaad qaadato detailka insurance-gaaga inaad qaadato markastoo aad shaqaynayso si aad maaragtay aad caddayn uga dhigato mararka qaarkood waxaa dhici karta in aad haysato fleet insurance oo gaariga adiga aanaad ku qornayn hayada insurance in adiga aad ku qornayn oo company ku qoran yahay markaasoo kale waa inaad haysataa caddayn in aad ku jirto insurance topicii insurance-gana halkaas ayuu ku dhammaaday waxaan gelaynaa hadda collisionka ama damageka gaariga soo gaara topican wuxuu ka hadlayaa muxuu ahaye wuxuu ka hadlayaa dhaawaca gaariga soo gaara ama wixii soo gaara haddii aad accident gasho oo dhaawaca
wax kale kama hadlayo. horta marka ugu horeysa gaadhiga waxaa lagaa rabaa inuu yahay good condition mar kasta. marka TFL waxay ku leedahay haddii gaadhiga uu soo gaadho damagekaas oo waxyeeleeyey safetyga gaadhiga ama performancega siduu gaadhiga maaragtay uu ku shaqaynayo amaba appearancega gaadhiga maaragtay siduu u egyahay ama aragga gaadhiga amaba comfort gaadhiga haddii uu wax u dhimay accidentiga gaadhigaas soo gaadhay hadduu afartaa mid ka mid ah uu effect ku sameeyey waxa weeyaan waa inaad TFL u sheegtaa muddo 7 saacadood gudahooda waa inaad TFL ugu sheegtaa. waxaa laga yaabaa gaadhigu inuu baahdo in mar dambe re-examination lagu sameeyo amaba dib maaragtay inspection loogu sameeyo. kaasna waxaa ku dhammaaday topicii collisionka ku dhammaaday maxaa yeelay damage gaadhiga maaragtay soo gaadha iyo wixii laga samayn lahaa. waa kii ugu dambeeyey hadda ayaan gelaynaa oo ah information about the vehicle. information about the vehicle maxay ka wadaan? waxaa dhici karta mararka qaarkood in gaadhiga la yidhaahdo ama manufacturers maxaa yeelay qoladii soo samaysay gaadhiga ay yidhaahdaan gaadhigu fault buu leeyahay ama informationka la soo gaarsiiyo TFL. marka TFL waxay samaynaysaa markaas inay adiga warqad kuu soo qoraan amaba manufacturerka qolada maaragtay gaadhiga samaysay ayaa warqad kuu soo diraya oo ay ku leeyihiin gaadhigan cillad buu leeyahay. marka waxaa lagaa rabaa warqaddaas markay ku soo gaadho inaad raacdo instructionka oo aad gaadhiga soo samayso. haddii ay TFL warqaddaas ay soo gaadhaan mis gaadhigaaga waxay ka dhigayaan waxa weeyaan way kaa joojinayaan shaqada ilaa iyo inta aad ka soo samaynayso. kaasi wuxuu ahaa topicii ugu dambeeyey ee section 2. halkaas ayaanan kusoo gebagabaynayna insha allah. imikana waxa aan samayn doonaa su'aalaha ayaan muxuu ahaaye ka jawaabi doonaa. su'aaluhuna waa inay noqdaan su'aalo ku saabsan casharka aynu maanta qaadanay. marka su'aalu way furan yihiin qofkii raba gacantu taagi karayaa. marka qofka ka horeeyey ayay gacantiisu ka soo hormaraysa.